naftayda dartiisu huray hadalka kuma oran karo xishooda dumar bay ilaaray xishooda dumar bay ilaaray gabdhaheena Soomaaliyeed waa kuwa Ilaahay xishood ugu deeqay iyadana mararka qaar ay dhacdo in xishood dartiisa ay ku waayaan qofkii ay nolosha la qaybsan lahaayeen ama dunida ay ugu jeclaayeen balse waxaa jiro siyaabo kale ay u soo gudbistaan dumarka isla markaana ay ugu soo bandhigtaan ragga iyagoo aan oran waan ku jeclahay iyo waa ka helay balse ragga qaar ayaan fahansaneen bandhigashada noocaasi ah calaamada ka turjumaya gabadha haddii ay ku doonayso wiilyahow ayaynu kuu soo bandhigi doonaa maadaama qof dumar ay tahay xishoodna uu jiro midkaan u hibeeyay naftayda dartiisu huray hadalka kuma oran karo xishooda dumar bay ilaaray xishooda dumar bay ilaaray calaamadahaasi haddii mar waliba ay doonayso in garabkaaga ay taagnaato gaar ahaan marka la galayo sawirada guud mar waliba oo sawir guud la galayo haddaad aragto in dhankaaga ay soo istaagayso tani waa halis ee ogow waddadii jacaylka ayay ku dhacday sawiradaana waa ka xasuus ee wax fahan niyahow aan xariifka ahayn marka labaad haddii ay ku daryeelayso haddii aad xanuun dareento xilliga shaqada ama qaab kale aad u aragto in garabka ay kaa qabanayso oo daawo ay kuu keenayso ogow si dhab ah ayay kuu rabtaa qodobka saddexaad haddii ay kugu raacayso hadal waliba oo aad tiraahdo haddii aad aragto in mar waliba aysan mucaaradeen hadal aad tiri ogow waxa ay rabtaa in dareemahaaga ay soo jiidato qodobka afraad haddii ay kugu yeerto in aad barato asxaabteeda aadna aragto in ay xushmad u qabaan aragtidaada haddii aad aragto in asxaabteeda ay ku barayso waxa ay doonaysaa in nolosheeda ay ku geliso haddaad aragto in asxaabteeda u xiiso qabaan aragtidaada ogow iyada ayaa horay kaaga sheekaysay waxa ayna ka doonaysaa ra'yigooda ku aadan dhankaaga 5 haddii ay fursad ku raadinayso in ay kula hadasho haddii aad aragto iyadoo kormeer ku hayso dhaqdhaqaaqyadaada oo fursad ku raadinayso marka dadka kale wada joogtaan in sheekadaada ay kula qaybsato aadna dareento in ay doonayso in badan ay wax ka ogaato xaaladaada iyana isgaadgaad ayay kugu haysaa qodobka 6 haddii mar waliba ay ku weydiinayso su'aalo la yaab leh haddii haweeneydu ay ku dhiirato in ay ku weydiiso su'aalo la yaab leh oo ka baxsan shaqada ama waxbarashada haddaad labadaas wadaagtaan ogow waxa ay ka doorbidaysaa in si fog kuu barato oo waxa ay ka fakiraysaa in ay kuu soo dhawaato marka 7 qancin been ah haddaad aragto iyadoo wax waliba oo aad tiraahdo ku dhoolla caddaynaysa mararka qaarna qosol la dhacaysa kuwaas oo aan gaarsiisaneen heerkaas ogow qancin ayay ka wadaa waxa ayna doonaysaa in ay kuu muujiso sida ay kula dhacsan tahay qodobka 8aad oo ah qodobka ugu dambeeya haddii fariimo badan ay kuu soo dirayso haddii fariimo badan dhanka emailka iyo teelka kana baxsan shaqada ogow waxa ay muujinaysaa in dhab ahaan ay kuu doonayso waxa ayna rabtaa in fikirkaada kala barqabsato oo ay gasho maskaxdaada waa 8 qodob oo cadeynaya in haweeneyda ay doonayso in xiriir dhab ah ay kula yeelato haweenka ayaa ah kuwa inta badan aan sheego kare jacaylka ay u qabaan iyo haddii ay doonayaan in qof xiriir ay la sameystaan midkaan u hibeeyay naftayda dartiisu huray hadalka kuma oran karo xishooda dumar bay ilaaray midkaan u hibeeyay naftayda dartiisu huray hadalka kuma oran karo xishooda dumar bay ilaaray xishooda dumar bay ilaaray